بسم الله الرحمن الرحيم maantay oo ay taariikhdu tahay 21 bisha May 2025 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jiraa'id oo la xiriira hawlgalladii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ciidamada macawisleyda mujaahidiinta iyo saaxiibada Soomaaliya caawiya ay fuliyeen 72 saacadood ila soo dhaafay ayadoo guulo waaweyn laga soo hooyay oo aan rabnay inaan u hambalyeeyno ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ciidanka macawisleyda iyo saaxiibada beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed guusha weyn oo dagaaladii ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe weerarada lagu qaaday oo xagga cirka ah xalay iyo dagaaladii maalmahan oo dhan ka socday gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe xadkooda agaarka Aadan Yabaal oo saacada hadda aan idin la hadlayno dagaal xoogan oo ka socda halkaas magaalada Aadan Yabaal ciidanka macawisleyda iyo xoogga dalka wada socda ay u jiraan wax ka yar 2 kiiloomitir iyo dagaalo iyo duqeymo iyo weerar qorsheysan oo ciidanka danab iyo saaxiibada Soomaaliya ee Mareykanku ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose halkaasoo xalay lagu dilay maleeshiyaad gaaraya 30 laguna soo qabtay qaar nool oo gacanta lagu soo dhigay lana hubinayo hadeertaan in maleeshiyaad ay ku jireen dad waaweyn oo madax waxaan runtii kale oo bogaadin mudan in ciidamada nabad sugidda ee gaarka u tababaran ayaguna xalay gobolka Shabeellada Hoose Zabiid iyo Caanoole ay ka fuliyeen weerar qorsheysan oo maleeshiyaad halkaas ku soo abaabulayay nin weyn oo kamid ah sida nabad sugiddu ay sheegtay dadkii madaxdii soo abaabuli jirtay foobiyaasha magaalada Muqdisho lagu barmarka qaarkood lagu soo tuuri jiray tan iyo 2023 in halkaas lagu dilay lagu khaarijay asaga ilaaladiisii iyo kooxo kale halkaasna hub looga soo qabtay guud ahaan 72 saacadood la soo dhaafay kooxaha khawaarijta dib weyn ayaa la gaarsiiyay wax ka badan 120 canaasirtooda kamid ah ayaa halkaas ku nafwaayay inta ay ka badan dhaawacyo ay kala gudoomeen waxa xusid mudan saacada hadda aan joogno in ciidamada macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka ay gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe xadka meesha ka leeyihiin jidka la yiraahdo gorofka iskoyska Aadan Yabaal ama jidka gorofka oo iskoyska Aadan Yabaal meel la yiraahdo oo u dhow Aadan Yabaal in ay hadda dagaal xoogan kula wareegeen ciidanka macawisleyda iyo xoogga dalka wada socda waxaan rabaa shirkan jiraa'id la xiriira inaan u hambalyeeyo ciidamadeena sharafta leh inaan u hambalyeeyo bulshada Soomaaliyeed ee dagaalka kala soo horjeeda kooxahaas inaan u hambalyeeyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya taakulada xoogan siinaya xilli maaragtay kooxaha khawaarijtu ay si tabar liicayaan tabartoodii si liicayso waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo geesiyada macawisleyda gobolka Hiiraan oo runtii muujiyay dhabar adayg geesinimo iyo dhiiranaan ay kaga duwan yihiin macawisleyda kala dhan oo dalka dagaalka uga jirtay in halkaas ilamaaya hadda goob kastoo la isku qabto inay kaga guuleysanayaan kooxaha khawaarijta ayna maaragtay cashar iyo darsi lama ilaawaana ay u dhigeen kooxahaas waa bogaadinayaa reer Hiiraan waxaan bogaadinayaa dagaalkaas xaq ah oo runtii ay muuqato in kooxihii khawaarijtu ay dhul
ay horay ugu jireen ay dib uga guranayaan kadib markay arkeen kulaylka iyo cadaabka ay kala kulmayaan dadka reer Hiiraan ee dagaalka kula jira guul baan leeyahay gaar ahaan beesha Xawaale haddaan afka ku sii dhufano oo runtii noqotay xidig banaanka taagan oo dagaalkaasi u ah bogaadin xoogan baan u soo jeedinaynaa waxaan jeegaynaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalku inay qorshayaashoodii gabagaba u marayaan lagu rogaal celin lahaa deegaamo badan laguna qabsan lahaa dhulka khawaarijtu ay haysato dhan dalka Soomaaliya qorshayaashaasi beel gabagaba ay marayaan insha Allah taala waqti kol dhow dadka Soomaaliyeed waan u bishaaraynaynaa bishaaro weyn ayay maqli doonaan waxaan rabaa inaan halkaan fariin uga diro nimanka isku sheega mucaaradka qaarkood shaqo ka dhigtay in ay garab siiyaan oo afkooda ku garab siiyaan kooxaha khawaarijta ayagoo mar walbaba muujiya in ciidanka xoogga dalka uu burburay ayagoo afkooda mar walbaba arrintaasi aan kala xishoonayn oo mar aysan ahayn oo laba aysan ahayn dadkaas qaarkood waa xildhibaanadaas qaarkood deegaamadoodii al-shabaab ayaa haysata meeshii laga rabay inay abaabul galaan oo ay ku galaan sidii deegaamadooda sida xildhibaanada kale oo qaranka oo dhufaysada hore jooga meeshii waajibaadkooda dad deegaankii ay matalayeen ay horay u soo istaagi lahaayeen sidii looga xoreyn lahaayeen dadka ay u garabsiin lahaayeen inay maalin walba meediyaha la soo taagan yihiin ciidankii baa burburay hal guuto saas yeelaysaa ma jirto yaa hortaag waxa su'aal isweydiis mudan kelimadaas marka uu leeyahay ma dawlad buu dhaleecaynaya ma al-shabaab buu hiilinaya ma asaga maaragtay faa'iidada uu ka helayo cid sheegi kartaa ma jirto marka waxaan leenahay nimankaas odayaasha ah way siqaanaan maalin kasta inay dadka Soomaaliyeed hortooda ku ceeboobaan bilcagsi meesha ay leeyihiin ciidankii waa burburay siyaasadii qofkaas burburtay siyaasigaas ayaa burburtay bankruptcy baa ku dhacay wax uu ka hadluu waayay wax ummadda Soomaaliyeed la hor yimaado waayay waxaynan sababtay in uu ay noqoto inuu maalin kasta la soo hor istaago ciidankii baa burburay yaa hortaagan shabaab yaa maalin kasta dhimanaya korneelada hadeertaan aan maanta maaragtay aasayni ma waxay ku soo dhinteen ayagoo deeq qaybinaya miyay ku soo dhinteen furinta hore dagaalka ku soo dhinteen ciidanka xoogga dalku ammaan buu mudan yahay runtii waxaan leenahay mar kale uga digaynaa una sheegaynaa nimanka odayaasha siyaasaddu ka gashay inay maalin walbaaba hadalla afhayeenadii al-shabaab ay noqdaan waxaan leenahay kalsoo laabta fursad ayaa fiican baad haysatiin siyaasaddiinaad ku roontihiin ku mashquula waajibkii deegaamadiina idinka saarnaabaad gabteen waxaad gabteen inaad garab istaagtaan mujaahidiinta ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada macuusleyda ee dhufaysyada hore ku jira waxaad gabteen inaad idinku inta soo istaagtaan kaalintiinii aad ciyaartaan waxaad gabteen inaad shucuurka dadka Soomaaliyeed ilaalin weydeen siyaasad idinba noqonayso maalin kasta inaad halkaan la soo istaagtaan marka dadkaas odayaasha waxaan leenahay maalin walbaaba tuulooyinkoodii kooxaha khawaarija odayaashii kula shirsan miyaad aragteen ayagoo ka hadlaya miyaad aragteen ayagoo odayaashii shirinaya oo dhahaya khawaarijtan waa cadow Soomaaliyeed yaan la raacin yaan wiilal loo dirsan yaan waxba lagu darsan arkimaysid runtii waxa amaanan siyaasiyiinta kale ee ayaguna ciidanka garab taagan ee ayagoo mucaarada garawsaday inay ciidanka garab istaagaan inay bulshada Soomaaliyeed ay dhiirigeliyaan kuwaas ammaan baan u soo jeedinaynaa dadku isku wada mid maahan dad baa siyaasadii bankruptcy uga dhacday iflaas siyaasi ah ayaa ku dhacay يعني waxay siyaasadii ayaa ka halowday siyaasadii qalloocnaydna waxay keentay siyaasadaas qalloocan oo ka halowday
inay al-shabaab taageerayaal u noqdaan inay al-shabaab afhayeen u noqdaan mar labaad waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya macawisleyda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedba meel kastoo ay joogaan inay diyaar garow galaan inay weeraraan kooxaha khawaarijta ah in ay horay ugu socdaan way tabardaran yihiin waana aragteen reer Hiiraan baana muujiyay inay tabardaran yihiin inaysan tabar lahayn oo meel kasta ku jabayaanna waad aragteen waxaan leenahay meel kastaba oo abaabuladu ka socdeen abaabulkii socdayna ha la sii dhammaystiro horeyna ha loo socdo aagag cusubna ha lagu furo kooxahaas waxaanan ogahay in aagagaasi hadda qorshayaashoodii iyo hawshoodii socoto waqti dhowna ay aagagaasi furmi doonaan kooxaha khawaarijta oo dhabarka jeediyey dad badan oo rajo ku xirayana inay arki doonaan kooxahaas oo dhabarka jeediyey kooxahaas oo jabay ilaahay idinkiis waana jabayaan annagoo dhanna furimaha hore ayaana ku arki doonaa haddii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantiin